وهو Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Xabiibo Xuseen Xabiib. dhaqaatiirta cisbitaalka Soomaali Siiriyaan ayaa ku guuleystay in ay daweeyaan Xabiibo Xuseen Xabiib oo ah hooyo Soomaaliyeed taas oo cisbitaalka kale ay u diyaariyeen in ay gooyaan lugteeda bidix. hooyo Xabiibo oo qabtay xanuunka macaanka iyo dhiigkarka ayaa lugteeda bidix waxa ka gashay fargeetada qashinka lagu xaqo. dhaawacii soo gaaray ayaa waxa uu sababay in uu caabuq galo kadibna dhowr cisbitaal oo ay tagtay loo sheegay in lugta laga jari doono. nasiib wanaag waxa uu bukaanku soo gaaray cisbitaalka Soomaali Siiriyaan kaas oo u fidiyay daryeel caafimaad oo aad u sareeya si gaar ah Dr. Xuseen Cabdilcasiis Dr. Fadxi. daaweynta bukaanka ayaa waxay qaadatay muddo 3 bilood iyadoo ay dib u soo nooleysay rajadii ay maamo Xabiibo ka qabtay in lugteeda bidix ay dib ugu socoto iyadoo u mahad celisay Dr. Fadxi oo qayb lixaad la ka ciyaaray soo nooleynta rajadeedii. waa barafta inspection ay qaaday waxaa leegeeyay isbitaalka sagaal biyaan kusoo jiray lugta waa baraftay lugta waa qurintay waxaa dhihi lugtaan goosmaa waa la gooyaha marka Soomaali Siiriyaa lay keenay ana ogaan lahayn waxaa ka soo cararnay isbitaalka Soomaali Siiriyaa ay ii badbaadisay lugta alxamdulillaah adiga meesha anaa waxaan ku ugu dadaalay Dr. Fadxi ayaa gacanta ku qabtay Dr. Fadxi ayaa lugta ku dadaalay waa isku baqi tagtay inta isku baqi tagtay meesha weynankeeda galaas afkiis waa galaa alxamdulillaah ii badbaadiyey Dr. Fadxi ayaa ii badbaadiyey. alxamdulillaah hadda lugteedaan ku socdaa alxamdulillaah ilaahay ii gargaaray masoo akar garabka laga qabto waxaa lay saaray gaaryoolka musqusha lagu geeyahay sariirta lagu geeyahay alxamdulillaah hadda lugeedaan ku socdaa maasha Allah tabaarakallah ilaahay ii badbaadiyey Dr. Fadxi ayaa ii badbaadiyey Soomaali Siiriya alxamdulillaah waxaan ku kalkaal fiicanaa joogo waxaan ku maasha Allah tabaarakallah إيكا إبدباني لا إبدباني كده بلاد Soomaali Siiriyaan جيفي وهي عافي ماضي كده أصبحنا هاي قبل أعطي فرقيد قشنك أنكو استهاي وقت برختي كبتي أنكو استهاي كبتي بحقات كبتي وقت إسبتالك اللي جاي وأركي واين مرت اللي كان Dr. Fadxi gacanta ku qabtay kabti gumceedu ka soo bixiyay markaasoo dhiig lagama jeeray alcabo haddana subaxda dan dhiig lagama jeeray lugta kale u ekaatay bararka waa degay marka intaasaa la dhayaay alxamdulillaah ii gargaaray. waa kan Dr. Fadxi oo ka warbixinaya sida uu ahaa bukaanka markii hore iyo xaaladda haatan uu ku sugan yahay. maamo Xabiibo sida aad u jeedaan waxay ii timid isbitaalka ugu soo booqatay qaybta emergency-ga ayadoo markaasi aan lugteeda aan ku socon karin dhaawac inta ku dhashay wax loo yaqaan diabetic foot ulcer dhaawac dadka sokorta qaba ku dhaco dhaawac inta badan ku dhaca dadka sokorta qaba ah dhaawacaas oo caabuq fara badan dhaliyay lugta dhan isla fashfashtay isla barartay aanan dhul dhigis aan lala hawaysanaynin dhinacyada looga jiro aan kaligeed soconin ay ugu soo booqatay isbitaalka markaasoo ii imaanaysay ay ii sheegeen ehelkeeda inay ka soo carareen in lugtooda ay jaris ku qorneed maanta isbitaal ka mid isbitaalada dhowr isbitaal oo kalena ay soo mareen isla mar ahaantaasina alxamdulillaah dhiiggeedana aad u kacsanaay 110 oo ahay kan hoose kan korona 200 oo ahay sokorta sidoo kale inta waxay ahayd 500 wax ka sii koreeyay 500 ana bafay ahayd alxamdulillaah. waxaan wada ognahay in bukaan qaba xanuunka macaanka iyo dhiigkarka haddii uu dhaawac soo gaaro ay adag tahay in la badbaadiyo balse Dr. Fadxi ayaa ilaahay u suurtageliyay in uu ku guuleysto daaweynta bukaanada noocan oo kale.